waxaanu u nimid sheekheenu xaqii uu nagu lahaa iyo mashaayikhda la midkaaba inaan soo ziyaaranno ayadoo amwaadoo dhan ziyaaradoodu dhinaca iskaga mid tahay baa haddana saalixiinta bal waxaad sheegaysaa inta la soo aadoo la ziyaartee afkii salafu saalix wuxuu ku tegey oo imaamu nawowi sharxu muslimka ku soo celceliyaa cinda dikri saalixiina tanzilu raxma magacooda meesha lagu sheego baaba raxmaddu soo deganaysaa markii la soo aadoo loo yimaadana waxay yidhaahdeen wayusannu idaalatu lwuquufi cinda qubuuri saalixiin barakaa laga kasbadaa ummaddii oo dhan saasaa inta soo wada tuurtay baa meeshaan saasaa lagu yimid waxaan isku dayaynay marka intii la joogay in shareecada islaamka inaan daabiqno oo aan daboolno oo nooc walba aan samaynayno aan la nimaadno mawlima salli calaa sayidina muxamed وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم تقوذي والله هل خيركي كرودنا والله هل مشايخي ووينايين وشيخ محمد عبد الجوان كميه وحا فديده mar haday joogaan aanan hal jirin waana la gaabgaabinayaa kalimooyinka walow munaasab ay tahay maalintii Sheekh Maxamed Cali Waciis halkaan aan ku xabaalaynay baa qorraxdu waxa uu ka daahirtay nooc karaama ah oo kulayl ba aysan lahayn wax nooga aadan aan la arag noocun qabo Ilaahay nooga dhigay marka waqtigan dunuubtii hadrayntii waan ka sii badanay waxa ku noqon doona ma naqaanee Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waa kana jidkaygii asagoo sida u cabiran oo u ligan asaga raaca jidadka baadilka ah oo soo galaysa ha ku bayrinina quraanka istiqaamada iyo qaabka inta u hadashay aad bay u badan yihiin aayaadka Ilaahay iyo xadiidka rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sawiray marka aan joogno maqaamka mashaayikhda ahlul cilmiga sida maqaamka sheekhuna Sheekh Maxamuud Cali Waciis maqaamka sheekhuna asagoo nala joogi jiray Sheekh Yuusuf oo kale markaan joogno maqaamu ahlul cilmi markaan joogno waa in Ilaahi idankiis بإذن الله تعالى وبتوفيقه شريعة الإسلام كوائنا تدبولنا مسلمين تنا أن أمرنا إلى يوم القيامة سيد إلهي بأويد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن ندابقنا شريعة الإسلام وحكى لبدني إنه مجرت إلا مشايخ ذي أهل العلم أو شيخان كم ذها Sheekh Maxamuud raga ugu waaweyn waxa qoroontan damana dadka Ilaahay diinkiisa ugu soo saaray waxa sidii asagoo ku ahna uu ku wafaaday maalinkii qabriga iilka la dhigayo Sheekh Maxamed Cali Waciis ban saa u fiiri markaas Ilaahay wuxuu waafajiyay rasuulkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam raga iilka dhigayaan la hadlayo afkan ku hayeeyo korkan fadhiyay markaasay labinaad saddex inta soo qaateen labinaad bulukeetiye inta soo qaateen dhiiqada iyo dhoobada naga joojiya meesha Ilaahay ka yeersi naga daaye illa dadka aad arkaysid amwaada anu maanta oo dhan markii aan meedka ilkiisa galo kafantan u dhaqaaya kafantan u hagaajinaya ciidan ka jafaya maanta oo dhan baabu ahwaal al-mawta kutub dhan oo ka hadashay oo kutuba suyuudu u leeyahay ay kamid tahay warka waliga iska ka qaada hadda mowduucan ku jira xarkan oo meel kale warka waliga isaas waanan aad u miisaamin ayaa kutuba ahwaal al-mawta bay waxay yiraahdaan amwaada waxa la suneeyaa kafanta in loo wanaajiyo meydka fiican laanahum waa isku soo ziyaaranayaan ahwaal badan oo qaraa'ib oo ka dhacday bay sheegaan kutubta halkaas akhbaarta ku wariyaan waxa dhacday bay yiraahdeen dad inta la arkay amwaadaha qof inuu ka waayay hooyadiis aabihiis dadkiisi inuu ka waayay oo uu weydiiyay oo ay yiraahdeen kafantiisii beenan soo qurxin marka wuu xishoonayaa inuu na soo raaco ka xishoonayaa marka kafantiisii beenan soo qurxin marka kafanta waa loo qurxiyaa aad ba kafanta looga dadaala waxay la barteen
dhoobay inta soo qaataan iyo dudun oo qasaan xataa qofka hadhow celin doonin bay ku alkuudayaan dhabarka markaasuu hadhowtii qofku markuu dibira waxa la rabaa inuusan qiblada ka soo dhicin shay adag baa saa loogu taagaya nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wanasabna alayhi labina nasban bulukeetiyada dhoobada la sacneeyeen dhabarkiisa waxaan ugu istaajinay si toos nabiga ugu istaajinay sidii rasuulka loo galay baa sunna ah sheekh maxamed diinka uu ka shaqayn jiray ilaahay wuxuu waafajiyay in bulukeetiya saa loogu istaajiyay dhabarkiisa aysan soo dhici kareynin qofkaasi si kasta hadii caloosha ay weynaato maradiisana waan ku dadaalnay dharka marka horena mara qabiil maryo asagu sheekhu uu ku tala galay sheekhu uu hadda wuxuu ku dhintay geeridiisu waxay ahayd geerida ay yiraahdaan dadka mustayqidiinta ah oo baraarugsanna maslaxay u tahay dadka muqaffaliintaana dan uma ahan mawtul fajaha noocaas oo kala ah sheekhu saasoo u dhintay ilaahay falligiis sariirtiisii geerina bal inuu lagu tala galsanaa u kaadiye ilmo kala madaahimaayay cishihiiba soo kala madaahibay raatuba soo kala madaahibay gurigi markuu u tagay buu yiri musqusha inta galay u yabal wiilkii ugu yar waxbaan dardareemayaay wiilkiiba kuma soo gaarin kalaam aan la maqlayn kulli tawxiidka moodid asoo ku hadlayuuba u yimidba waxa laga soo bixiyay joodargiisa hoostiisa kafantiisa laga soo bixiyay sheekh show mid uu ku saxanayaba kafantaas ugu hoos jirtay miya marka kafantii baan ku dadaalnay dhooba iyo dhiiqa bal meesha in la keen u kaado war adigu wafti markaad xaadiraysid ahlu khayr marka dad waaweyn baad ilaahay rajihiis baa la qabaa hadda qof mar hadii xaalkiisu xumaado ma walban ka hadlayn waa la qurxiyaa qofka waa la wanaajiyaa quruxda waxa kamid ah dhabankiisa iyo ciida runta in la barahayo oo aan waxba laga xijinaynin laakiin dhiiqada ka daayi waxa sunnada ah waxa weeye dhabarkiisa waxaan arkay sheekh maxamuud oo dhabarkiisa bulukeetiyada saa mashaayiikhdii hoos uga jiray ay ugu teeriyeen sidii rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam aad baan ula yaabay ilaahay sheekh tawfiiqda ilaahay u waafajiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa uu ka shaqayn jiray sida uu ugu dadaalay baan la yaabay annakuna marka aan wada ogaano amwaada kafanta marka horena aan u qurxino kadibna yaanan ka wasaqaynin aan kuna dadaalno kulli annaka inta xilku naga saaran yahay wax aan ku soo dumaynin oo adag حتى dhulka jilcsan sunna waxa sanaadiiq aan dumaynin qofka inta lagu iiliyo in la dhigo dhulka dumaya oo jilcsan marka sheekhana sheekh maxamuud sidaas ilaahay inuu waafajinayo waa rajayneen iyo shariicada islaamka dadka ilaahay u soo bixiyayba saasan u rajayneen tani yaraantiisii asagoo dadka diinka baranaya kulay kitaabahana bara baasha Ahmed Barre iyo ragii la ziyaartay baa noo sheegay Sheekh Yuusuf baan waxaan la kulmay bay yiraahdeen Sheekh Yuusuf Sheekh Ibrahim Bawsho Maxamuud jamaa oo la ku jiray 3 jeer oo ay la kulmeen man xaadir ahaa buu yiri kullay Sheekh Ahmed Barre kaliya ma ahana dad badan oo kalena way sheegeen qisadaas markii la isku yimid baa sheekhu waxa iyo dadkii baa la isbarayay Sheekh Maxamuud markay marayso 3 jeer bay soo martay inuu yiri baan u maleynaya بوحوا لها بير الشيخ يوسف أمبورك معنى هذا وحوي إله وكم بركة مركي أصلا هذا الكسوم مربى أمبورك بولها بير صدق لي شرب وحنا أجابي إجازة الشيخ النسيي صدق لي شرب وحو كل دري بير أنت بقول أهيد ما أقان لكن وحو كل دري بير قفك إجازة أنا خير كان الاسكودي به يرجع إلهي وضده خير كل جور جينا يا وحوي هدي waxtari karo shafeeci karo qofka markaas bixinaya inuu shafaaco hadii kale dadka u siinayo qofkii kamidii oo ka fiican inuu shafaaco saasa loo rabaa bi sheekh aad buu isku hoos dhigi jiray sheekhuna Sheekh Yuusuf waxa kamid ah sheekhuna Sheekh Yuusuf waa halkan xurub balaayaha ay ka jiri jirtay ba markii xoogaa qolo lagu ridaya waxa la oran jiray ilaahu qoladaas magaca inta la sheegay waxa yahay ilaahu bidcada ilaahu qolada saasa warab waxaan bal horta abaarka sifaadka dadka ku abaarisan kuwa aad noo dhibay bayna ahaayeen casirka suuq bayna la dul saarnaan jirin aad bay xogaa noo dhimeen war sifada aad ma abaarisan habaarkan ugu soo roginina habaarkan annaka ugu roginina inta kuwaan markaas hadaan isla wanday geedka hebel iyaga inta sheegtaan magacooda xogaa nooga jeeyo naga daaya sifaadka markaasuu Sheekh Maxamuud Shidane wuxuu yiri shalana waxa sheegay sidaas oo kale Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar بوحو يري شيخنا شيخ يوسف با شيخ مسولدي با وحو يري markii uu salaada aadaamayo hadda faarax umar sidii uu wadi jiray faarax wuxuu oran jiray faarax macallin wuxuu oran jiray bi yiri
أعداء الدين الله إنه شبيه كذا إنه شبيه كذا إنه شبيه مر أنت دل هل مركو جراع شري مركز وحي يري بيري سو أعداء الدين كاسم كدر شري يوحيا وبضانو خيرانا بو فاتح هذا أمري شري مركز وحي وكالش ورموس وأعداء الدين كذا بارس هوايو شيخ أعداء الدين من هبارين وأنكم أحباب الدين بنا هبير وأنا هبارين بيري ماشي سلسلة أجنايو تقوى إلهينا تقوى إلهي ماشي وقارينا وحي يقول الشيخ على حديث شيخنا شيخ على حديث عالمك اللي يقاني بقى وحي يقول أنيقا الشيخ يوسف دادكم ما يقانو يري هير كاسو اسلام مريي وحي يري تقوى وحي يقول ماهان رير قلبيد شعال صوفي وعلى كل مي ولقي الشيخ يوسف نينك التقوى بدن ما أرق بيري زهدنا رير قلبيد وحي يقول ماهان بيري شيخ عمر زاهد أو تاريخه كبحيي وعلى كل مي بيري ولقي الشيخ يوسف نينك زاهد بدن ما أرق بيري اسكما هيسن مركة فاسقين تمركة اللي الشيخ وحي أورنجري أنا الشيخ بلي أبو درام marka faasiqiinta dadka faasiqa wilaayad ma la yarintiisa marka la sheego meesha isla taagna halkaas Sheekh Maxamed Cali Wacaysna waxa ii sheegayeen mid nin sheekha wuxuu yiri sheekhu intaas oo kitaabaha buu Sheekh Maxamed Cali Wacays ku yiri intaas oo kitaabaha sheekhu khadkaaga ka dhageysanay sheekhu kitaabihi ii idan buu yiri garabku inta ku dhuftay buu yiri wargeel qaadkan ka kitaabaha ma aqaan ta garabka ku dhuftay meeshaas isla taagnaayeen mashaayikhdu ayagu كسر النفس نفتود ويسلجمنايد أنا كنا مركب وحنا واجبه موضوع عن ربيع وحي وكان دفع يا هبه بوحي هي بل شريعة الإسلام كأن نطبقنا لما تسجرين قيل بوحى لو من شيخنا الشيخ يوسف شيخ إبراهيم رحمة الله تعالى عليه بوحى اللي يري شيخو قيل كاس أو ولبا مقابل الأصح وقف نفتس وعمل فلكره أسقوا دين عيال ولبا وحي يقول هذا الشيخ جامع محمد نور بكيد من يوانا يقانا إلهي هون حارس أسجنه شيخ وقيل كاس ماشاس نقول عسلاتي نفس الدين ما وعمل فلكرنا بنلعب ويا اللي انتو صافر يستيبوا بهرت مسألة حقيقي مقابل الأصعية مقابل الأظهر يسيد أي كليهين بقى تحقيقي هاي صون سبيننا بير أنا وحان دين تاس قوي جداس معتمد كاس هين سيداسنا وحاها مشايخ الصوماليات بدأ أنت عن تاريخ هين من شغبيك المحضار لقب بلابو إلى مشايخ الشيخ أن دول تاجنا هي سداسي هاي الشريعة الإسلامك قوي جدا وطريقة تصوفك وصوفية تشتكودا أفضل الأحوال مقام كمال والبقص الرئيسي ساء الدليهين إلهي بين ودي سنة هي حالتك سوسو قد بوناته مركز وحي يرهدان وحو اسبدلا قفك إلهي ومؤمن كاهي قاعدة أساس صوفية كميدة أفرتن شربو مالنتي اسبدلا wuxuu leeyahay tana Allah ka khayr badan kaas ka wareegaya wal munaafiquna hal sifo ku dul nagaada biyo oo lagu bartay مثلا قراءة القرآن مد وياه حظ النفس باكتشر اسكت دول نجاهدا كمان وريجي حبض داس سدا سي أهاين إلهي خيركم أمال مريه بركة دين إلهي أنا سي مشايخ داس أندل شوقنا أو سا اسمه ولا تعلاين نور كوسا أمبرناين الشيخ اللي يراهدو الشيخ محمد علي وعيسى حوغا أرهن هذا كهرنا للسمية أيام تانا لقاه دفان أركاي الشيخ محمد علي وعيسى الشيخ عبد الله عبدي وشيخي دلي أو شيخ أها لبا شيخ وقت وسكول دوا وحنا لوجه شيء إن لبض الشيخ زيارة دودو أي كيل زيارة هي بكي كلنا لزيارته مركب والله السمية خير كواب السمية بلدتك الدعينة هي يدتك الشيخ محمد مركي يا شيخ الشيخ عبد الله زيارات هذا والسلق اللي يعني لك الريبن مركب وحنا سكول دار منا إلهي تقودي ساس هذا تربت التقوى إله إله هذا ربت الدعاء إله إله هذا ربت استقامة إله شريعة إسلامك وحنا قلت تاجناهي أو أن ربنا إنا نقول إسناجنه أو أن اسكو أمرنا أنك هرت نفتنا أنت أنا واحد كلا بشيء من في زياراتنا وفي صلواتنا وفي كل شؤوننا وحنا ربنا شريعة إسلامك إلهي هنا وافتي مشايخ لا بركوه ذنا إلهي نقول سي إنا دبقنا إلهي هرت هنا وافتي همين يمالين بإلهي هنا وافتي زيارة مشايخ هي التقوى إلهي بنكوضها مركا أنكو أمدان أدركيسد زيارات كمشايخ مولد كحبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم لبطان واثنتان لبضا حبو وحيهين مد سنوية هي مد دائميه مضطرده تاغن مرولب مد كسنويه ومد كانوا كله ننكم أبلا من ميرشان
ummadaas ilaahay ee faraweyn ee halkaa isugu timid ee mashaayikhdaas adqiyadaasaas iskugu imaanaysa lagulama ballamin caado gaarihina ma jirto fadli ay ka fadli badan tahay waqtiga sheekhu uu dhintay iyo waqti kale 12 bilood waqti ka fadli badanna ma jiro ziyaaradu waa isku mid laakiin ummadii baa ilaahay wuxuu waafajiyay an tadfacahum jihaadku inay soo tuurayaan markaan oo kale noocaada kama tagana caadadii baa waxay noqotay markaan oo kale in ijtimaaca ila khayr buu leeyahay inta kale ziyaaraadka ifraadiyaadka jamaaciyaadka iska socda midda mujtamaca weynaha saatan oo kale u dhacaysa ma aaminsanin inay ciidaha kamida tahay ma aaminsanin shariicada islaamka jidkeeda saas inaan inta ugu istaagna xagga iyo xagga midna aan uga bixin baa nagu waajiba waxaanu u nimid sheekheenu xaqii uu nagu lahaa iyo mashaayikhda la midkaaba inaan soo ziyaaranno ayadoo amwaadoo dhan ziyaaradoodu dhinaca iskaga mid tahay baa haddana saalixiinta bal waxaad sheegaysaa inta la soo aadoo la ziyaartee afkii salafu saalix wuxuu ku tegey oo imaamu nawawi sharxu muslimka ku soo celceliya cinda dikri saalixiina tanzilu raxma magacooda meesha lagu sheego baaba raxmaddu soo deganaysaa markii la soo aadoo loo yimaadana waxay yidhaahdeen wayusannu idaalatu lwuquufi cinda qubuuri saalixiin barakaa laga kasbadaa ummaddii oo dhan saasaa inta soo wada tuurtay baa meeshaan saasaa lagu yimid waxaan isku dayaynay marka intii la joogay in shariicada islaamka inaan daabiqno oo aan daboolno oo nooc walba aan samaynayno aan la nimaadno mawlidka waa saas oo kale u fiirso shay waajiba ma ahan waa shay mashruuc ah mashruuc haddii la yidhaahdo waajibka iyo sunnada iyo mubaaxa saddexdaba waa ku dhacaa waa mashruuc cibaado mudlaq ahayd oo aan samaynayno oo aanan u aaminsanayn hal noocahoo cusub oo ay keenaysa aanan u aaminsanayn nooc cusub oo ay dhalinaysa maya cibaadadii ilaahay noo jideeyey ziyaaradii rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam oo amray afraadeedii bay ka mid tahay saas ula imaanaynaa markaasaan waxaan oranaynaa haddaan horta shariicadii daabiq weyn hal munkar haddii la soo geliyo waa burinaya hal munkar haddaan soo gelino khatar buu yahay kama wado laba qof oo wax isla xamatay iyo maya si ijtimaac ah oo midaysan munkarkii lagu sameeyo noocu u dhacaba wuu burinaya ziyaaradu burinaya ilaahay naga badbaadiyo markaan mawlidkeena saxano ziyaaraadkeenana aan saxano shariicada islaamkana aan daabiqino baan waxaan oranaynaa qidaaru lmawlidi wa qidaaru ziyaarati almashaayikh yamshi walkilaabu tanbax mawlidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam tareenkiisu waa taagan yahay ziyaaraadka rasuulka ziyaaraadka mashaayikhda tareenkoodu wuu iska soconayaa wixii ay waac iskaga hayo oo tareenkaas rabshaya maba ogaba inuu jiro in kale maba kale ogaba hadduu meelahaas xabad ka cayrsado hadda waa xabad iskaga faa'iiday alqidaaru yamshi qidaaru almawlid wa qidaaru ziyaarati almashaayikh walkilaabu tanbax laa yubaali markaas waxaan saa oran karnaa shariicada islaamka markaan ku daabaqno ilaahay subxaanahu wa tacaala baan hadda hor taaganahay barina hor istaagaynaa asaga aan baqitaankiisa ku bilowno asaga baqitaankiisa aan ku khatimanno labadii aan sheegahayo ka booday waxay ahayd midaan waa sanawiga tan kale waxa weeye xuquuqda rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam oo nagu leeyahay iyo mashaayikhdu mid ay nagu leeyihiin daa'iman mid taagan weeye allahana waafajiyo wabillahi tawfiiq